ciidamadan macawisleyda beesha makane ayaa maanta dhoolatus ciidan oo cajiib ah waxa ay kusoo bandhigeen deegaanka Baladanuur ee dowladka magaalada Beledweyne. ciidankani ayaa waxaa hormuud u ah horkacaya General Xeedar oo si weyn kaga soo horjeeda qaabka saami qaybsiga ee loo maray hoggaanka sare Hirshabeelle, xildhibaanada kaga maqan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xaqa kaga maqan gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne. Macalin Xeedar oo 2,000 oo ciidan oo Maleeshiya ku haysta dowladka magaalada Beledweyne ayaa garab ka helaya bulshada magaalada Beledweyne. beesha makane ayaa cadaalad daro ku tilmaamay hanaanka saami qaybsiga gobolka Hiiraan iyo degmada Beledweyne. ugu horeyntii waxgarad iyo dhalinyaro taageersan maleeshiyada beesha makane ayaa sheegay in si nabadoon ay ku raadinayaan xuquuqdii ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan iyo hoggaanka sare Hirshabeelle iyo xildhibaanada kaga maqan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. mawduucayga wuxuu yahay ninka mugga inta leeg Beledweyne ku leh dad walaalaha ila degan gobolka ila leeyihiin kamalihi waa gobol Soomaaliyeed waa magaalo Soomaaliyeed waa naga wada dhaxaysaa. maxaysan naga wada dhaxaysaa? nabad, walaalnimo iyo macaan iyo cadaalad. cadaaladii maxay noqotay? cadaaladii kaasay noqotay Soomaaliyeed. hay eedina waan tuurayaan badii anigu kaasay sitaa maanta. xuquuqdii degmada ma hayo oo tii gobolka ma hayo. xuquuqdii degmada ma hayo oo tii gobolka ma hayo oo tii Hirshabeelle ma hayo oo tii federaalka ma hayo. waxa adigana 100 ka dhigay ana 0.5 ka iga dhigay adaa laga rabaa halka daliilka ka keentay. war 100kiiba 50 qaado horta halka u tuur 50 ka soo haray 25 ku bari. dulqaadkayga badan darisnimaan dhowra diirka madow iyo durriyada Soomaali diinta islaamka aan taneeyay hadda dacar la isleeysiinaya. mid mucaarad sheegta iyo mid muxaafad sheegta intooda midkoodna aniga waxay ogol yihiin ma jirto. qowda maqashii waxba laha u qaban baan arkaa. sidaa darteed walaalayaal waxay idin sheegayaa nasabnimadii maanta kaasay gashay, wanaagii kaasuu galay, xumaan waxaan ku yiri xalaashii kaasay gashay. waxa la gaaray heer xalaashii la qaato oo xaaraantii la qaato oo xalaashii la diyo. xishoodkii laga tago xirribaha la soo xiirto. waxaan u malaynayaa beeshaan ka dhashay maanta intan waa tuulo barwaaqo kaliya aan u malaynaya waa runtay waa 94 tuulo. awal dameeray gataan iyo matooray gataan wixii waa ka soo gudbeen imika balse 20 ka diikeendaya waa hal tuulo tuulo kale kuma jirto waa hal tuulo oo maanta taaganay. waxaa soo dhanaada ugu wacnaa already annagu xaqaygii baan rabnaa cidna u daba fadhiisan mayno. 10 marka askari la qarameeyo ayaa 5 lagu darsaa beeno mishaarkooda la qaato. idinku reer dhan caagle am yaa aragteen oo mishaarkooda la qaadanayo? reer dhan baa lagu darsaday meeshan. kuwii halka tuulo deganaa halka tuulo ayaa 5 xildhibaan leh. anna 3 xildhibaan oo jeebka ku jiro marban meel iska geystaan la runta sheego. xildhibaan kastoo ka soo federaal ha noqdo ama Hirshabeelle ha noqdo xildhibaan kasta oo beesha ay leedahay xuquuq waxay leedahay waan rabnaa. waxana nooma cuntamaan wixii aan xaq u lahayna cidda qaadanaysa ee laga dooranay waa gobolka Hiiraan. nin degan baa naga matalaya. hadalka waan badiyay. ragxaan isku ogay balanteena xaqeena ma dhaxsanaa. xuquuqdeena ma u doodnaa. xanib iyo xabadna u ridnaa. inay beesha makana maanta ay u taagan tahay xaqoodii ee ka maqnaa muddo fara badan oo xuquuqdoodii la lumiyay lana lunsaday. maanta waxaan marqaati ka ahay oo aan qirayaa in maleeshiyada beesha makane ay halkan diyaar ku tahay una taagan yihiin inay helaan xuquuqdooda si xaq ah ay ku helaan. dhanka kale siyaasi Cabdisalaan Maxamuud Macalin Xuseen oo ka mid ahaa siyaasiyiintii ka soo qayb galay dowladtuska ciidanka maleeshiyada makane ay ku sameeyeen dowladka magaalada Beledweyne ayaa goobta ka hadlay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa siyaasadeed oo aan tabaya oo bulsho ahaan u tabaya xaqiiqdii waxa weeye dhariga hadduu karka ka bato cidna ma kontrooli karayso. hadduu dhariga karka ka bato cidna ma kontrooli karayso. meeshaas marka waxa ku cad in bulshadii fahamtay xaqii siyaasadeed ee ka maqnaa. waxaan u baahannahay inaan helnaa xaqa siyaasadeed ee nagaga maqan Hirshabeelle. xaqa siyaasadeed ee nagaga maqan Hirshabeelle kuma qanacsanin 3 xildhibaan wax la yiraahdo 3 xabo balaq ahaan aad u soo tuurteen kuma qanacsanin.
hirshabeelle marka la yidhaahdo waa laba ina loo qaybiyaa oo keliya jareer iyo jileec baa loo qaybinayaa xildhibaanada meesha jooga jareer iyo jileec basaa loo qaybinayaa boqolkiiba 50 aan leeyahay aniga jareer baan ahay labada gobolna waa degaa sidaan u qaybsadaa shaqo kuma leeyihiin inaad adiga ii qaybisaaba ma ahaba inaan kaaga badanahay mooye kaagama yari haddane waa ku raalli noqday oo waxaan ugu raalli noqday inaad ma taqaanaa 10 xabo ama inaad gadaal maxay ahayto ma garanaysaa yacni wax lagaga darayo ad waxaan u malaynayaa inay jiraan xildhibaano dheeri ah xildhibaanadaas dheeriga oo kubii jareer ahaana layga reebay waayo weliba gaar ahaan makanana layga reebay waayo cid kaleba iguma laba 18 dadda la sheegay waa lagu darayaa kuwaas anaa iskale waa kuban ku xisaabtamayo waayo waa rajada kaliya oo ii dambaysa waayo kuwaas haddaa ii dhaafaan iminka kan waxaan wax ku raadinayaa si nabdoon si maxay ahayto ma garanaysaaye walaaltinimo si bulshanimo si dadnimo laakiin 18kaas marka aan xaq u leeyahay iga wareejisaan oo sida hadda aan rajaynayna cid baa ku gorgortamaysa oo la raba in lagu kala xalliyo aad aniga geeskayga marisaan marka weji aan ahayn oo maxay ahayto idinkuna aad abuurteen aad ugu tala gasheen inay imaato ayaa iga imaan doona laakiin nooca wejigu yahay sheegi maayo ugu dambeyntii macallin Xaydar oo 2000 oo ciidan oo Maleeshiya ku haysta duleedka magaalada Beledweyne ayaa wacad ku maray inuusan sii maqnaani doonin xuquuqdii beesha makan ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan iyo degmada Beledweyne iyo xaqa kaga maqan xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle Maleeshiyada makan oo nahay janaraalkii xukuumadda u taaganahay xuquuqda beesha makan in Hirshabeelle oo dowlad goboleed iyo federaalbo in xuquuqda beesha makan ay barta soo dhigaan hadday soo dhigi waayaan aniga oo Jenaraal Xaydar Xasan waxaan u taaganahay oo Maleeshiyada beesha makan janaraalkeedii waxaan u taaganahay inaan dhigaynin macawistan qabo tuudo ma qaato sarwaal ma qaato laakiin macawistaas ma dhigay xuquuqdaasaan u taaganahay waxaan tusayaa Maleeshiyadaan u sheegayaa waryaada dhigamayna tuutaha macawista dhigi maayo ilaa ma xaqayno bari oraxsan lagu tumanay aan ka helno